Dallini waaye dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhiribeen allahu dhow
mahadsantihiin waana idin hambalyeynaya si wanaagsan aad nooga duubasaan iyo sida u timaadeen ma sha Allah xaafadan ay tiinmay 20 sano ay jirsatay Somaliland iyo sida wanaagsan ay u soconayso qabanqaabiyayaasheedii oo farabadan iminka halkan jooga iyo sida uga soo qayb gasheen iyo dadweynuhu bas uga soo qayb galay dhammaan dhalinyaro xildhibaano dad cadcadoo wadanka xildhibaanadiisa kamida dhammaanba aad iyo aad baan u salaamaya ugu mahadnaqaya wax allaale wixii Somaliland ka tirsan ee yimi iyo inta kale ee maqli doonta ama daawanaysa aad baan u salaamaya
kee waran dareenkaaga caawa ku wajahan xafladan 18 May wallaahi lama koobi karo kaasi waa farxadihiisa iyo wada aragtaan ummadda halkaa maraysa iyo carruurta iyo dhallinyarada halkaa maraysa iyo madaxda halkaa joogta marka runtii aad buu u farxad noo farxadgelinaya ama aan ugu faraxsannahay sidii aanu doonaynay iyo si ka sii fiicanna way noogu dhacda aad baad maanta farax aad mudan walaal adigu magacaaga khadra la yiraahdo walaal waxaad ka mid tahay qabanqaabiyaasha xafladan Liverpool ee 18 May ka dhacaysa Soomaa haa walaalo haye iga waran dareenkaaga caawa wallahi dareenkayga aad buu wanaagsan yahay aad baan ugu faraxsanahay in aan maanta xafladda intan leeg annagoo ku hadlayna magaca Soomaaliland aanu ka soo qayb galnay waanaanu ku faraxsanahay sidaanu doonaynayna way noogu socotay waxaanu leenahay 20ka iyo in ka badan bay jirto waa maxay fariinta aad u farayso shacbiga reer Soomaaliland ee ku dhaqan adduunka dacaladiisa waxaan leeyahay gacmaha isqabsada aad iyo aad mahadsan aad mudan walaal ku soo dhawaanayna news marka hore Hello salaam iga waran dareenkaaga caawa maayo waxaad joogtaa xafladii 18 May ka dhacaysay magaalada Liverpool waxa weeye lama soo koobi karo kelmadana laguma soo qiyaasi karo waa farxad aan la soo koobi karin maxaad shacabka reer Soomaaliland ee adduunka dacaladiisa ka dabaaldegaya maanta aad halkan u marinaysa waxaan u marinayaa horta tahniyad ballaaran waxaan leeyahay maxay shacabka Soomaaliland meel kasta ay joogaan uma baahnid in la idin ictiraafay idinkaas ictiraafay waxa weeye idinka la idin baahan yahay idinku cidna uma baahnid in Ilaahay baa u baahan tihiin taasaan leeyahay aad iyo aad mahadsan adamadan waxa dareenkaygu aad iyo aad buu u wanaagsan yahay wuxuu tilmaamayaa dareen maaragtay wadankaygu inuu horumar gaadhay oo aan maaragtay aan doonayno inaan ictiraaf helno waxaan dareemayaa walahi waxaanan sheegi karin halka ku soo koobi karaynin iminkana daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan najax oo ka mid ah qabanqaabiyaasha xafladan 18 May ka dhacaysa magaalada Liverpool najax ku soo dhawaanayna news marka hore waan ku dhawahay aad baa mahadsan tahay iga waran dareenkaaga maadaama xafladan aad dadkii soo qabanqaabiye ka mid tahay dad aad u fara badan ay ka soo qayb galeen bal dareenkaaga caawa iga waran wallahi dareenkayga caawa aad iyo aad baan u faraxsanahay waayo xafladda sidii aan doonaynay u dhacday waanaad aragtaa sida dadka oo inaga soo qayb gabay ama ay u dhacayso xafladdu kolayde ummadoo dhan Soomaaliland ay tiimay bay ahayd marka 20 sano jim ka jirnaa marka everyone way u dabaaldegayaan marka anagu dabaaldegayga waan ka qaadanay soo marka waxay ila tahay inay si wanaagsan u dhacayso aad iyo aad maadsantahay adaa mudan Yaasiin xafladan aan ka soo qayb galay runtii waxa weeyaan si wanaagsan oo qiimeeyo qaylo u dhacday waxaan leeyahay meel kasta oo ay joogaan shacabka reer Soomaaliland hambalyo ayaan u dirayaa wadankii dibadaha meel walba ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo radio Caynabana aad iyo aad baan ugu hambalyeenayaa sida wanaagsan ee ay ula socdaan hawlaha ama magarasay wax la wixii adduunka ka dhacayo oo dhan ay dadkooda ula soo xidhiidhiyaan kamida hees aan leeyahay oo cusub oo animka soo saaray heesana waxa la yiraahdaa calanka haddii aan midheeda wax kaaga sheego wuxuu odhanayaa calayahow casaanka iyo caddaanka iyo cagaarka leh tawxiidka culus iyo xidigta madowga caqli nimaan lahayn bay kula tahay cayaayare inta geesi caan baxay ama curado qaaliya ee ciidda hoos maray caddadu way ka badantee adiguna cawaalow cimrigaa ha raagee cidhifyada dalkeenniyo cirka sare ka biligley heestaas oo ka mid ah sayga cusub ayaa ku jirtay oo aan ku soo bandhigay iyo qaar kaloo badan bismillaahir rahmaanir rahiim walaal waad mahadsantahay Yaasiin maxay haytay xafladda tan maanta oo ay hawl aad u fara badan naga gaadhay oo aanu maxay tahay aad iyo aad ugu dadaalay inay si wanaagsan dadka ugu dhacdo waxaan ku sheegi karaa inaan ku faraxsanahay oo aad iyo aad ugu faraxsanahay in xafladii ay si fiican noogu dhacday ma sha Allah indhiina ku arkaysaan iga waran maanta dareenkaaga ku wajahan xafladan 18 May maadaama adduunka dacaladiisa ay reer Soomaaliland ka dabaaldegayaan waa maxay dareenkaagu caawa wallahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigu mudaharaadkii dhaweydna waan ka qayb galay maxay ahayd oo London baan tagay oo aanu calamada ka ruxnay oo maxay ahayd aanu si weyn mudaharaad weyn u sameynay tanna maanta halkan aan ku qabaynaa marka dareenkaygu waa xawayaan waa high very high way aad iyo aad baad mahadsantahay Maxamuud adiga mudan walaal insha Allah iga waran dareenkaaga maanta xafladan 18 May ka soo qayb dareenkaygu waxaan cabiri karaba ma aha aad iyo aad baan u faraxsanahay aad iyo aad baan waxaan u jecelahay inaan maxay ahayd farxadeeda muujino haddaan nahay magaaladan haddaanu nahay dadka reer Soomaaliland haddaan nahay dadka reer Togdheer haddaan nahay dadka reer Burco si gaar ah ayaan u sii faraxsanahay magaaladan dadka u badanna waa dadka reer Togdheer marka haddaanu nahay gaar ahaan reer Soomaaliland aad iyo aad baan u faraxsanahay annagoo waliba aad iyo aad baa mahadsantahay
adigaa mudan waxaan kaloo jecelahay inaan dhammaan dadkii reer Somaliland salaamo inaan ku yiraahdo maxay haytay hambalyo congratulations insha Allah wayna la ixtiraafaya ama waba already wayna la ixtiraafay dikol hadaynu inagu is ixtiraafnayna ixtiraaf inoo harsani ma jiro oo nafteena ku kalsoonahay waxaan kaloo salaamayaa dadkii wadanka joogay waxaan salaamayaa gaar ahaan reer Burco intii muuqayga taqaana inta magacayga taqaana iyo intii ehelay intii maxay haytay reer Somaliland dhamaantood meel joogan wuxuu qurbaha jooga iyo wixii wadanka jooga bawaan salaamayaa aad iyo aad baan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa dawladdeeda wanaagsan maxay haytay imka 9 bilood dhowdhow jirtay waxaan leeyahay haddaan nahay qurba jooga reer Somaliland dawladdu aad iyo aad baan anagu ugu shaqaynaa haddaan nahay reer Somaliland waxaanu jecelahay markaan wadankii nimaadno inaan sida ajnabiga nolola dhaqmin ee si Somalilanders nolola dhaqmo waxaanu jecelahay markaan airportka berbere ka soo degno waana lagu hasal gareeyaa inay dawladdu ogaato inaan la hasal gareynin waxaanu jecelahay in gobol waliba airportkiisa ka soo dego waxaanu jecelahay gobolka Togdheer iyo gobolada bari oo dhanba in airportyada loo furo oo qof waliba uu ka dego magaaladiisa oo aan lagu kalifin inaanu ama berbere ka soo degno ama Hargeysa aad iyo aad baan dawladda uga codsanaynaa gaar ahaan madaxweynaha waxaan doonayaa walaal please inaanad ka jarin interviewgayga waa in fariinta gaadho haddaan nahay reer Burco aad iyo aad upset waxaan uga nahay inaanu intaanu ka soo degno berbere airport aanu halka transportation ka qaadano waayeel baanu leenahay dad xanuunsanayaan leenahay caruuraan leenahay way nagu adag tahay annagoo long journey soo galay inaanu haddana baabuurna lagu daabulo oo bas yaro cidhiidhiyan maalintii u dambeysayna lagu qaaday aad baan uga xunnahay annagoo sida wadankaygii u berber taagan haddana in waxaana lagu sameeyana aad baan upset uga nahay dadku waa inay equal noqdaan sida reer berbere sida reer Hargeysa mid walba gurigiisa uu taxi ugu tagayo gurigiisa waa inaanu taxi gurigayga ugu tagnaa markaan diyaaradda ka soo degno xukuumaddu waa inay arinta ay wax ka qabato wax ka maanta waxa ka soo qayb gashay xafladan 18 May runtii waxaad ka mid tahay qabanqaabiyaashaba bal iga waran dareenkaagu sida uu yahay maanta xafladan 18 May aad ku dabaaldegaysaan bartamaha magaalada Liverpool walaalo maanta dareenkayga ma soo koobi karayo aad iyo aad baan u faraxsanahay reer Liverpool yani waxyaabaha waxan wanaagsan ay sameeyeen aad baan ugu hambalyeynaya waa maxay fariinta aad u gudbinayso shacabweynaha reer Somaliland iyaguna dabaaldegaya maanta farxadan maxaad kala qayb qaadanaysaa walaalo waxaan kala qayb qaadanayaa farxadaas baan kala qayb qaadanayaa waxaan iyagana waan u hambalyeynayaa 18 May iyagana waan u hambalyeynayaa dhammaan reer Somaliland meel kasta oo ay adduunka ka joogaan waxaan leeyahay hambalyo iyo sanad wanaagsan sanadkiisa inaynu ku gaadhno bash iyo barwaaqo iyo aqoonsi ayna adduunka rabno aad u mahadsantahay adiga waad mahadsantahay walaalo iga waran dareenkaagu caawa sida uu yahay xafladan 18 May 18 May dareenka aad buu fiican yahay yani xafladan 18 May sanad guurada 20aad Somaliland aad baan ugu faraxsanahay waxa ilaahay ka rajeynayay inaan insha Allah 3 sano inoo intiraafo waxaan waliba maqalinin baa yiri Kenya bayna intiraafaysa waxa ilaahay ka rajeeyay halkaas inuu run noqdo insha Allah aadna ugu faraxsanahay